aabbaha ummadda Soomaaliyeed Jaalasiyaad waxa uu shaaca ka qaaday himilada iyo sida weyn ee kacaanka Soomaaliyeed uu ugu dadaalayo danta Afrika waxana uu ku tilmaamay inay tahay lagama maarmaan Afrika inay midowdo isagoo oo la hadlaya dadweynaha bishii November 3keedii 1971 Afrika hadday wax qabsaneen wax qaban maayo Afrika midnimadeeda qiimo kasta ku fadhidee waa in la daafaca waa in madaxda Afrika ay fahamtaa inay tahay lagama maarmaan inay iyagu danahooda xalilaan ama ha noqoto daafacooda ama ha noqoto Afrika midnimadooda iyo imaadkooda ama ha noqoto dawladnimo isu raaca ha noqoto ama dhaqaalahooda ama communication-kooda xal u yaala iyaga weeyaan hadday gartaana waa ay hagaagsan karaan haddii kaleetana waxaa imanaysaa in sidii horeyba loogu bartay gumaysiganaga qaar been meel loo goosto oo cadaanku ay ugu barteen waxaa nasiib darro ah in Afrika qaarkeed ay maanta ku jiraan gunnimo foolxun oo dad yar oo cadaan oo ay gumaysanayaan dilahayaan xaqirahayaan xuquuqdii aadaminimada ay u lahaayeen xataa inay daamariyeen waxaa jirtay dawaa'ilka Afrikaanka ah inay hadda ka hor qaraar gaareen waxay ahayd nasiib xumo inay haddana ka baxaan qaraarkood iyagoo maslaxad yar oo tooda kaliya fiirinaya oo sharafkii Afrika oo dhan uu meesha ku lumayo waxaanu leenahay kuwaas gumaystayaalka ah hub kastaba hana loo samaysto hana dib loogu noqdo talo hor leh iyaga iyo kuwa taageeraba sidii wax looga qabsan lahaa